isma aanay arag weligood Zakariya Cabdi Aadan iyo Najmo Cabdi Maxamed, balse midba kan kale wuxuu ka maqlay codkiisa markii ugu horeysay wicitaan group oo koox rag iyo dumar ah ku dhexmaray Facebooka 24kii Maarso 2019 xilli fiid ah. Isbarashada hal habeen oo qura wuxuu guntay xiriir adag, wuxuuna soo gabagabeeyay wada hadal, isfaham iyo jacayl lagu bixiyo waqti dheer. Zakariya Cabdi iyo Najmo Maxamed hal isbuuc oo kaliya oo aanay dheehowdu isqaban cod mooyee kadib waa ay isguursadeen. Kaagaba sii daran wuxuu meherkooda dhacay iyagoo is arag 31kii Maarso 2019 oo waxaa laga meheriyay gabadha qadka taleefanka. مناسبة وسلامي ورحمة السلام عليكم. أنا يا حاجة سكرية وحنا سبرناي لابد كوسع عليه طبعا كبشي سدحات أفر اللي بعتين كذي لأنه حاسكور سناي بشي سدحات كويس صدق كذا. ما من سنة إن نلاش ستة عشان سنة لا شو كان سنة اللي حسنا لا شو كان سنة تزوج كان سنة نلاش قف كان ما يهقف كيكو قلمي تسد مس فهمتين. وأنا كفر أحسن هاي الحمد لله أنا لا شيء حاجة قدرنا لهاي ما شاء الله وبتكيس قروح بدنا هيستو. markii meherku uu dhacay midba kan kale wuxuu u degdegayay is arag, waayo noloshan ku dhismatay kala fogaanta ee midba midka kale uusan ku ildoogsanaynin wejigiisa ayay doonayeen labaduba inay soo idleeyaan. Si taasi ay haddaba u dhacdo, Najmo waxay u soo safartay waddanka Belgiumka oo uu Zakariya deganaa markaa. wuxuu ahaa kulankoodii ugu horeeyay, aad ayay u adkeyd inuu midba kan kale aqoonsado. Tani waxay keentay in waqti dheer ay iska baadi goobaan gudaha garoonka diyaaradaha ee dalka Belgiumka. 2 saac oo midba uu dhinac u cararayay, ugu dambeyn isha ayay isku dhufteen. mise waa bilowga farxad hor leh. tan isbarashadan haddaan dib ugu laabto way adkeyd xilligaasi maadaama 50 ruux in ka badan goob aan ku wada caweynaynay 40 ka midna ay rag ahaayeen misdheheenin laftirkeyga sidan ay wax u fududaanayaan, laakiin wax walba waxaan leeyahay waa calaf iyo jacayl markaas labadeenaba midkaan midka kale uu muujiyay. muddo 7 ah oo ay Najmo saygeeda kula sugnayd Belgiumka waxay dib ugu soo noqotay dalka Jarmalka oo ay deganeed. markii ay wada joogeen 6 bilood waxa uu Alle ku irsaqay wiil, balse in 6 bil iyagoo isqaba ay ilmo isku dhalaan oo lagu biiriyay guurkoodii oo hal toddobaad oo isbarasho aan la is arkin kadib dhacay waxay dalka Jarmalka ka noqotay dhacdo ugub ah. waxayna keentay in jaraa'idyo badan oo dalkaas ka soo baxa ay maqaalo ka qoraan sheekadan sida uu sharaxayo Zakariya. Munasaro haddii aan dib ku celiyo sheekada la yaab kale waxay tahay oo dadka Soomaaliyeed iyo waliba dadkan reer galbeedka aan la noolnahay ee badanaa weydiiyaan 6 bilood sidee ubad ugu dhashay, sidee xiriirkiina maaragtay oo 6 bilood u soo afjarteen bilowgiisa ilaa haatan. marka taasi waa midda maaragtay dadku ay la yaabeen, laakiin waxa rabaa inaan u iftiimiyo 6 bilood ubad ku dhashay yani gabadha operation ay martay, marka saas daraadeed ayuu cunuga maaragtay oo ifka ku yimid. tan isbarashadan haddaan dib ugu laabto way adkeyd xilligaasi maadaama 50 ruux in ka badan goob aan ku wada caweynaynay 40 ka midna ay rag ahaayeen misdheheenin laftirkeyga sidan ay wax u fududaanayaan, laakiin wax walba waxaan leeyahay waa calaf iyo jacayl markaas labadeenaba midkaan midka kale uu muujiyay. inta badan haasawaha Soomaalida waxaa lagu yaqaanaa in lamaanayaashu waqti qaataan oo aanay guurka ku degdegin. marka arintaas ay ka hadlayaana waxay u soo tusaale qaataan mahmaahyada caan baxay ee ah geedkii orod lagu koraa orod ayaa looga degaa, iyo haddii degdegsiimo door noqoto kaadsiyana kiish lacag bay dhashaa, oo labaduba ka turjumaya inaanu guurku degdeg ku wanaagsanayn. balse Najmo aragti iyo talo taas ka duwan ayay bixinaysaa. ما من سنة إن نلاش ستة عشان سنة لا شو كان سنة اللي حسنا لا شو كان سنة تزوج كان سنة نلاش قف كان ما يهقف كيكو قلمي تسد مس فهمتين. وأنا كفر أحسن هاي الحمد لله أنا لا شيء حاجة قدرنا لهاي. hadda labaduba dalka Jarmalka ayay ku nool yihiin, waana lamaana korsanaya ubad Alle uu ku irsaqay. balse su'aasheeda ku socota ragga iyo dumarka doobka ah ayaa waxa ay tahay muddo 7 ah ma ku guursan lahayd. sideese u aragtaa
noloshan ay yegleesheen lamaanahan Soomaaliyeed.